kulan wanaagsan saaxiibayaal xoogagga difaaca cirka ee Syria waxay ka hortageen gantaalo ay ku soo rideen Israa'iil. Mikhail Gorbachev hogaamiyihii hore ee midowga Soviyeeti waxa uu booriyay wada hadallo si looga fogaado dagaal nukliyeer la isku adeegsado oo dhex mara Mareykanka iyo Ruushka iyo Xuutiyiinta Yemen oo u sii hanjabaya Sacuudiga maalin kadib duqeyntii fashilantay oo ay la beegsadeen magaalada Riyaad. Qodobadaas ayaanu ka soo qaadanaynaa wararka ugu waaweyn adduunka soo dhawaada. وهجاج مركل كلن وناكسن مجاعيجو أبو بكر محمد تاريخ دوحي كوبيجان تهاي كوذا بيش السدحاد مارسو سنة كلابكون كو يلاباتن waxaanu ku bilaabanayna wadanka Suuriya. Militariga Syria ayaa sheegay in ciidamadooda difaaca cirka ay ka hortageen gantaalo Israa'iil ka soo riday buuraleyda Golan Heights. wakaalada wararka rasmiga ah ee Suuriya ee Sana oo soo xiganaysa ila military ayaa sheegtay in gantaalada Israa'iil oo la riday saacado uun ka hor saqdii dhexe ee habeenkii Axadda ay bartilmaameedsanayeen xeryo ku yaal agagaarka caasimadda Suuriya ee Dimashq. ila wareedka ayaa sheegay in ku dhawaad dhammaan gantaalada si guul leh ay uga hortageen difaaca hawada ee Suuriya. warbaahinta Israa'iil ayaa ku andacootay in duqeynta cirka ay jawaab u ahayd weerar dhawaan lagu qaaday markab laga leeyahay Israa'iil oo marayay gacanka Cumaan kaas oo ay Tel Aviv ku eedeysay Iran. Israa'iil ayaa inta badan bartilmaameedsata fariisimaha militariga ee gudaha Syria gaar ahaan kuwa gacan saarka la leh dhaqdhaqaaqa wax iska caabinta oo door muhiim ah ka ciyaara caawinta ciidamada Syria ee dagaalka kula jira ururada hubeysan tan iyo sanadkii 2011. horaantii bishii la soo dhaafay gantaalaha Israa'iil waxa ay soo farageliyeen nidaamyada difaaca cirka ee Syria iyagoo dul maraya gobolka koonfur galbeed ee Quneitra. maamulka Tel Aviv ayaa inta badan ka aamusa weerarada ka socda dhulalka Syria oo dad badani u arkaan falcelin jilibka dhulka loogu dhufanayo guulaha sii kordhaya ee uu gaarayo maamulka Asad. dhinaca dalka Yemen sarkaal sare oo ka tirsan Xuutiyiinta sidoo kalena loo yaqaano Ansaarullah ayaa sheegay in weerarada lagu beegsanayo bartilmaameedyada Sacuudiga ay sii socon doonaan ilaa ay inta laga soo afjarayo dagaalka sanadaha badan qaatay ee Sacuudiga ka wada Yemen. Mohammed al-Bukhayti oo ah xubin sare oo ka tirsan golaha sare ee siyaasadda Yemen ayaa hadalkaas ku sheegay waraysi uu siiyay shabakada wararka ee Al-Mayadin ee fadhigeedu yahay wadanka Lubnaan. waxa uu yidhi waxaan u jeedinaynaa Sacuudiga inay ka baxaan saldhigyada militariga haddii ay sidaas sameeyna waxaan xaq u leenahay inaan bartilmaameedsano. isaga oo intaas ku daray in howlgallada Yemen ee ku wajahan bartilmaameedyada Sacuudiga ay sii socon doonaan ilaa iyo inta laga joojinayo waxa uu yeeray gardarrada iyo godoominta lagu hayo wadankiisa. Sacuudi Carabiya iyo tiro ka mid ah xulafadeeda gobolka ayaa bilaabay dagaalka lagu hoobtay ee Yemen bishii Maarso ee sanadkii 2015 si dawladii taagta darneyd ee Cabdurrabb Mansuur Haadi loogu soo celiyo xukunka loona burburiyo dhaqdhaqaaqa Xuutiyiinta ee Ansaarullah. ugu yaraan 80% dadka reer Yemen ayaa ku tirsan gargaarka dibadda si ay uga badbaadaan waxa qaramada midoobay ugu yeertay dhibaatada bani'aadanimo ee ugu xun adduunka. horaantii bishii February hay'adaha Jumciyadda Qurumaha ka dhaxaysa waxa ay ka digeen in ku dhawaad 400 oo kun oo caruur Yemeniyiin oo daadoodu ka yar tahay 5 sano ay khatar ugu jiraan sanadkan inay naftooda ku waayaan nafaqa darri ba'an. dagaalku wuxuu burburiyay ama xiray kala bar cusbitaalada iyo rugaha caafimaadka ee Yemen taas oo ka dhigaysa dadka inay yihiin kuwa aan caawimaad haysan gaar ahaanna xilli ay baahi weyn u qabaan adeeg caafimaad oo ay kula dagaalamaan cudurka safmareenka ah ee COVID-19. ugu dambeyntiina digniinaha ku saabsan dagaal dhexmara Ruushka iyo Mareykanka ayaa sii kordhaya. Mikhail Gorbachev oo ahaa hogaamiyihii ugu dambeeyay ee midowgii Soviyeetkii burburay ayaa wuxuu ugu yeeray madaxweynaha Mareykanka ee Joe Biden iyo dhigiisa Ruushka Vladimir Putin inay khilaafkooda ku xaliyaan wada hadal iyo inay ka shaqeeyaan xakameyn dheeri ah oo ku saabsan hubka nukliyeerka. waraysi ay la yeelatay wakaalada wararka Ruushka ee Interfax ayuu Mikhail Gorbachev ku sheegay in labada hogaamiye oo ku wada hadlay telefoon kadib caleemasaarkii Biden bishii hore ay waajib tahay in ay kulmaan oo ay wada hadlaan sidii loo riixi lahaa xakameynta hubka sida baan wax u gumaada. waxaan aaminsanahay inay mahuraan tahay in madaxweynayaashu kulmaan. khibraddu waxay muujinaysaa inay lagama maarmaan tahay in la kulmo oo la wada hadlo ayuu yiri 89 jirka soo hogaamiyay midowgii Soviet. waa caddahay in waxa ugu weyn ay tahay in laga baaqsado dagaalka nukliyeerka maadaama dhibaatadan oo kale ay tahay in laga fogaado. macquul maaha in kaligeed la xaliyo waa lama huraan in la kulmo haddii rabitaanka hubka dhigista iyo xoojinta amniga ay baahan wax badan ayaa lagu guuleysan karaa ayuu hadalkiisa ku daray.
xiisadaha ayaa u dhexeeyay labada dhinac intii uu xafiiska joogay madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump waxaana sii huriyay eedeymaha weerarada dhinaca internetka ah iyo in badan oo khilaafaadyo ah oo la xiriira arrimaha amniga iyo xakamaynta hubka nukliyeerka. waxa kale oo xiisada sii huriyay markii dhawaantan diyaaradaha waxduqeeya ee Mareykanka ay ku dhawaadeen aag ay ku sugnaayeen ciidamada badda ee Ruushka, gaar ahaan badda Norway oo ah gacan ka mid ah badweynta Atlantic ee aagga Arctic. waxa ay ku dhowdahay badda Barents oo loo arko inay tahay barxadda ciidanka badda ee Ruushka iyo hoyga ay leeyihiin maraakiibta gujiska balistiga ah ee waqooyiga Ruushka. Ruushka ayaa si isdaba jooga u muujiyay walaac uu ka qabo dhaqdhaqaaqyada sii kordhaya ee ciidamada NATO ee uu Mareykanka hogaamiyo ee ku dhow xuduudaheeda galbeed. horaantii sanadkan Mikhail Gorbachev wuxuu ku booriyay Washington iyo Moscow inay hagaajiyaan xiriirkooda kana gudbaan kala goosyada caqabada ku ah horumarka xiriirka labada dhinac, isagoo sheegay in xaaladda hadda jirta ay tahay mid aad looga walaaco. wuxuu yidhi mar haddii heshiiskii New START ee nukliyeerka, heshiiskii u dambeeyay ee xakamaynta hubka nukliyeerka ee u dhexeeya Ruushka iyo Mareykanka la kordhiyo, heshiiskaas uu aad u hami badnaan doono, waxaana uu sheegay in la wada hadli karo. New START waxaa qalinka lagu duugay sanadkii 2010 markaas oo ay xafiisyada Washington iyo Moscow kala joogeen Barack Obama iyo Dmitry Medvedev. heshiiska ayaa u ogolaanaya labada dowladood inay haysan wax ka badan 1550 madax oo nukliyeer ah iyo 700 oo gantaale iyo bambaanooyin. bishii Janaayo 29keedii madaxweynaha Ruushka wuxuu saxiixay sharci lagu kordhinayo heshiiska dhimista hubka istiraatiijiyadeed ee New START oo maamulkii hore ee Mareykanka uu ku guuldaraystay inuu kordhiyo. saaxiibayaal, intaas ayaan ku gabagabeynaynaa warbixinaha adduunka ugu waaweyn. waqtigiina ayaad ku mahadsantihiin. nabadgelyo.